niyada su'aashu waxa waaye ruuxa aan niyada goynin oo niyada berri ma soontaa mise ma soonti mise ma soontaa mise ma soomid asagoo sidaa niyadiisu tahay buu waaga ku baryay soonka ma sii wadan karaa jawaabtu waxa weeyaan soonkiisu ma asaxayo niyada shuruudeeda waxaa ka mid ah inuu ruuxu qatciyo gooyo niyada laakiin hadduu baltan geliyo oo taraddud ay niyada ku jirto niyo maaha laana niyada maxaynu ku sheegnay waa iraadatu lqalbi ama caziimatu lqalbi waaye waa go-aan waayo qalbiga waaye waa go-aan ee ma aha taraddud maaha hadduu mutaraddid yahay ma niyoonin nacam bilowga bisha ramadaan dalka maraykanka dad baa waxay soomeen maalintii arbacada oo bishii baa la arkay dheheen marka maalintii arbacada way soomeen caalamka intiisa kalena waxaa laga soomay maalintii khamiista marka su-aasha waxay leedahay dadkii arbacada soomay xukunkooda muxuu yahay dadkii aan soomin oo isla meeshaas deegaankaas maraykanka oo kale maalan deganaana xukunkooda muxuu noqonayaa oo khamiista soomay maraykanka iyo waddamada inaga jira dhanka qoroodhac naga xigaayo mar walba oo waddanku uu gabaldhac sii xigo ama galbeed sii xigo bisha araggeeda waa uga nasiib badan yahay waana uga hormari karaa waddamada bari jira leanna qoraxdu waxaan u jeedaa bishu waxay ku lamaan tahay marka la waayayo waxay ku lamaan tahay qoraxda in yar bay marka uga durugtaa oo dibdib uga soo durugtaa sidaas daraaddeed maalinka labaad marka la arkayo bimacnaa way ka soo fogaatay wailaa way jirtaa maalinkaa lala-iya lafteeda way jirtaa laakiin qoraxday la dhacaysaa qoraxdii baa lala waayaya qoraxdaa qarinaysa marka waddamada qoraxda dhicitaankeedu inaga dambeeyaay aragga bisha ilan way soo durkaysaa way ka soo fogaanaysaa aragga bisha way inooga dhow yihiin inay arkaan oo iyadoo ka soo durugtay qoraxdii bay arki karayaan waa suurtagal waana masalada waxa weeye in aragga bisha lagu kala duwanaan karayo waa masalo waaqica weeye masaladu aragga ma lagu kala duwanaan karaa oo meel inta laga arka meel kale ma laga arki waayi kari kara waa waaqic midda iyada oo waqtigii saxaabadu waa tii shaam laga arkay oo reer shaam ay ka hormareen reer madiina masaladu kaliya waxay leedahay in la isla soomo oo meeshii laga arkaba lagu wada soomo miyaa laazima mise qolobana aragtidooday ku soomayaan masalada ikhtilaafu almataalica la yidhaahdo khilaafku ha ku jiro laakiin aragtidu inay kala hormari karayso iyada shaki kuma jiro hadalna kuma jiro ayagu marka wax weeye haddii laga arkay oo maraykan laga arkay ama dhul kale laga arkay oo ku soomeen bilowgii soonkooda way arbacay soonkooda bilaabeen waana sax isla aragtida meeshoodayna ku afurayaan waa sax dhib ma laha lawad wax weeyaan adduunkii yaaba kala fogba laakiin waxaa meesha geli karaya soonku inuusan aragti ku imaanine inuu ku yimid xisaab falakiya baa dhici karta xisaab falakiya waddamo badan baana hadda xisaabta falagga ictimaada oo aragtida ishaan ictimaadin hadday xisaabta falagga tahay waxa la ictimaaday oo maraykanka lagu soomay sax ma aha haddii aragti bishii la arkay lagu soomay waa saxa aragtidooday ku soomayaan toodayna ku afurayaan wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay ninkaas aragti bay ku soomeen dadkaas say sheegeen aragti bay ku soomeen dhib sax way haddii aragti ku soomeen oo laga arkay maraykanka waa sax soonkooda arbacay bilaabeen waqtigay u dhammaatana way dhammaysanayaan nacam hadday sax tahay way aragtidu sax nacam
su-aasha walaalku wuxuu leeyahay daawaan isticmaalaa indhaha ku shubaa markaan indhaha ku shubana dhadhankeeda dhuuntaan ka dareema sonkoor baan isticmaalayay soonka ma isticmaali karaa jawaabtu wax weeyaan haa waa la isticmaali karaa soonkana waxba yeeli mayso sidaas a'imadii salafka qaar ka mid ay ka sugan tahay sheekhulislaam ibnu taymiya siduu rajaxayo wey culimmada fuqahada qaar ka mid ah sidaasaana daliil ahaan sax ah sababtu wax weeyaan isha wax lagu shubay cunnana ma aha cabitaanna ma aha calooshana ma gaadho ishu uma furna caloosha uma furna wakadalika dhegta wixii lagu shubo caloosha uma furna wakadalika xagga dambe ee saxaradu ka timaado wixii ruuxa lagaga soo shubo caloosha ma imaan karo wakadalika ibta wixii lagu shubo caloosha ma tegi karo kullina waa masaa'il fuqahadii hore ay doodgeliyeen wixii halkaa lagaga soo shubo xagga lagaga soo shubo soonkii ma jebinaya mise jebin maayo dood fiqhiya way oo fuqahada dhex taalla laakiin xaqiiqadu wax weeyaan bini aadamka jidhkiisa wax badan baa hadda laga ogaaday manaafida noocaas oo kale wixii ka soo gala caloosha ma gaari karo buxuus baa laga sameeyey tashriixa aadamaha ee jidhkiisa ku saabsan oo xoojinaya wixii caloosha gaadho baa cuntiyo cabitaana laakiin qaar baa waxay maskaxda wixii ku shuma maskaxda wax ku shuma wax ma afuriyo dhegta wixii ku shuma wax ma afuriyo kaliyeeta uun sankaa la diiday oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wabaaligh fil istinshaaq illa an takuna saa'iman inaad sooman tahay mooye sandaarsiga markaad weysanayso ku xeel dheerow biyaha xoog u jiid inaad sooman tahay mooye oo markaan soomanay maxaa loo diiday biyaha weysada inaad xoog u jiido sanka ugu jiido calashaani waxa sanku wuxuu u furan yahay dhuuntu u furan yahay markaana calooshii bay hoos aadaysa marka sanku uu ka duwan yahay saas daraaddeed indhaha dhibcaha daawadee lagu dhibciyo oo la isticmaali karaa xataa haddaad dhuunta ka dhadhamiso khadhaadhkeeda xataa wax macnaa ma samaynayso waad isticmaali kartaa waxaa la isticmaali karaa sidoo kale dadka neefta qaba baashan heellada ah oo yacni lagu buufiyo neefta oo sambabka furta muxuu ahay iyadana waa la isticmaali karaa dadka neefta qaba dee neefta ku qabato fuqaha isay leeyihin majmuc alfiqh alislaami iyo fuqahada mucaasiriinta say u badan yihiin waa la isticmaali karaa leanna waxay leeyihiin waxay jidhka waxay sii daynaysaa uun hawo oxygen ahaan oo sambabka furaya sambabka bararka xoogaa ka yara dejinaysa laakiin waxa ma aha wax maada ah oo ay ku sii daynayso caloosha ma jirtay leeyihin waa nooc hawa oo kale ah marka iyaduna dhib ma leh ruux hadduu baado isticmaali kara wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay waa dhowr su-aal isku jira isku mawduuca dadka aan soomi karin ama dumarka xaamilada ah ama kuwa nuujinayin ama kuwa jiran ee aan caafimaad looga rajo qabin iyo kuwa duqa ah oo duqoobay oonan soomi karin fidyada laga bixiyo miqdaarkeeda su-aasha koowaad su-aasha labaadna waxay leeyihiin hal mar baa la bixini bishoo dhan oo ma bixin karaa qofka mise waa inuu maalin walba gooni u bixiyo su-aasha saddexaad oo isla mawduucaasna sheekh waxay leedahay meelaha qaarkood oo dad masaakiin ay joogeen maalan lacag intii laga dhigo ma la diri karaa oo lacag ahaan ma loo bixin karaa naqdi dadka cudurdaar kale ee afuri kara soonka iska afuri kara labay u qaybsamaan dadna qalaa laga rabaa dadna fidye iyo raashin bay bixinayaan dadka afuri kara ee qallaha laga rabo waxaa ka mid a islaanta uur kale iyo midda nuujinaysa waxaa ka mida ruuxa xanuunsanaya ee xanuunkiisu rajo leeyahay waxaa ka mida ruuxa u afuray safarta u afuray dadkaas iyo wixii la mida qallaa laga rabaayo raashin lagama rabo dadka qaarna waxaa laga rabaa raashin bay bixinayaan yeeyihiin waa dadka cudurdaarka u afuray cudurdaarkooduna uusan ka soreyn yeelanaynin uusan rajo lahayn uunu ka soreeyo soonkii way awoodi waayeen inuu ka soreeyana lama rajaynayo maalan wuu xanuunsanayaa xanuun buu la soomi waayey
xanuunkaasina inta bini aadamku garanaya rajo male inuu ka soo reeyo inuu ka sii daro mooyee raashin buu bixinaya مثلا روحي دأب ولا سومي واي دا إني كسر رئيس ميال رجينا يا ما إني كسر درتم وياني رجم مالي دأب ولا سومي واي حنون نوعاس ولا سومي واي dadka noocaasee cudurdaarka aan rajada lahayn la soomi waaya fidiyay bixinayaan maxay bixinayaan laba ra'yi bay qabaan fuqahadu shaafiiciyadu waxay qabaan waxay bixinayaan mudku wax weeyaan waa 600 oo gram taqriiban 600 oo gram waad garanaysaan waa nus kiilo iyo 100 gram maalinkiiba intaasoo kale baa la bixin bilay raashina xanaabilada ayaa siyaadiyo iyagu waxay dhaheen waa 2 mud oo marka waxay noqonaysaa 1200 gram ama 1 kiilo iyo 200 gram احتياطku wuxuu ku jiraa iyo dadaalku kan dambe ee siyaadada sheegay hadaad kari karto inaad inta maalinkiiba bixiso oo raashina noocyada bini aadamku cuno baad bixin lacag ma la bixin karaa jawaabtu wax weeyaan fuqaada badankood say qabaan maya raashin bay shariicadu sheegtay dad baahan raashin si ama intaad karisood bislayso isagoo bisil ugu yeedh oo ha cunaan hadhargan quraac dharji qada dharji afur isugu yeedho ama muxuu ahay casho dharji hal marun caloosha ku qaataan okay waa ama raashin cayriina si oo ka hadda aan soo sheegnay qiyaastaasi qaybi qaabkaas loo bixinaya طيب hal mar miyaa la wada bixin karaa mise maalin walba qaybteeda inaad bixiso waa labada waad heli kartaa maalin walba qaybteeda inaad bixisana waad heli kartaa intaad kulli isku soo darto hal maalin inaad qaybisana waad heli kartaa Anas ibn Malik kama fi sahih al-Bukhari khadimkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa markuu duqoobay da'bu gaaray 92 sano gaaray markuu da' gaaro soomi kari waayo wuxuu sameyn jiray intuu 30 miskiin isugu yeero hal mar buu qaybin jiray fidiyadiisu u qaybin jiray masaakiin badan qodobkana waa qodob muhiim oo waxa la bixinayo waa in masaakiin loo qaybiyo halka khalad baa dadka qaarkood ka galo hal ruux bay afuriyaan hal ruux masaakiin badan ma hal ruux baa maalin kasta soo noqdo 30kii bariba hal ruux buu afurinay fidiyadii waan bixiyay buu leeyahay allahumma in laga dhigo maalin walba uu gaajaysnaaba ruux madax banaan inuu yahay hadii sida loo qadaro ma qaan laakiin sida fiican wax way masaakiin fara badan in loo qaybiyo waa tira masaakiina sidoo Anas basameyn jiray sidaas marka fidiyada loo bixinayaa dadka fidiyada laga rabo wallahu a'lam barakallahu fiik sheekhana su'aalaha badiyeen su'aashan kale waxay leedahay ninba wuxuu leeyahay aniga marka hore waxaan aaminsanaa inta waxaan saxuran jiru leeyahay muddo intii aan soomi jiray aadaanka iyo aqinka dhaxdiisa inta xilligaas aan saxurtaa wiir aniga ilaa haddana saasan ku wada halkii ka hor xaalka ninkaasi waa ka soo jawaabay ninkii labada liilan oo barkinta hoosteeda gashaday oo kale la mid aba ka khaldamay walow ay ahayd inuu cadaysto oo wax weydiiyo oo diintiisa u taxadaro haddana hadday saa la noqotay wixii uu hore uu saa ku soomay ka daba tag ma leh Allah aqbalo wixii dambe uu insha Allah taala ha saxo ya nabiga waa ka yidhi sallallahu alayhi wasallam bilaal aadaankiisu yuusan idin diidin cuntada habeenimo aadaamayaay waa aadaanka hore ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuum muadinkii labaad buu ahaa oo indhala buu ahaa aadaanka dambe aadaami jiray wuxuuna aadaami jiray maadaama isagu indhala yahay wuxuu aadaami jiray markay dadku ku yiraahdaan warwaagi wuu bariyay warwaagi waa dilaacay markay ku dhahaan buu aadaami jiray markaas marka cuntada la joojin jiray marka aadaanka salaada subax baa cuntada joojiya wallahu a'lam sheekh barakallahu fiik
su-aashan kale waxay leedahay qof baa wuxuu leeyahay waxaan maqlay niyada waxaa kaaga filan suxurta mar haddii aad soo kacdo aad suxurato taas waxay u dhigantaa adoo niyeystay maadaama waxaad cunayso ay tahay wax aad soonkii ku xiranayso marka ma ii xirmaysaa niyaddaas haddaad suxuurato suxuurtu niye ma ah laakiin niyadii bay ku tusaysaa ya maxaad u suxuuranaysaa inaad soonto soo ma xilligaa intaad soo kacdo inaad wax cunto macaadii ku ahaan jirta ya xilligan maada soo kici jirin waxna maada cuni jirin waxaad u soo kacdood xilligan wax u cuncunayso waxbaa qalbigaaga ku jiro ku soo kiciyey ood rabtaa inaad samayso soo maa intaa waay suxuurtu marka waxay ku tusaysaa inaad niyeysan tahay laakiin iyada lafahanteedu niyo maaha niyadii bay daliil u tahay macnaha in qalbigaaga ku jirto inaad soomi rabto intaana waa ku filanta wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh su-aalahan dhowr su-aal oo isku nooc ah qaar ba waxay leeyihiin jimaaca mid baa wuxuu leeyahay anoo 14 jir ah baan bil ramadaan baan jimaac sameeyey marka malahna hadda waa nin weyn marka wuxuu leeyahay ma qadaa liga rabaa xukunkayga muxuu noqon mar haddii aan 14 jir ahaa su-aasha kalena waxay leedahay haddii qofka xaaskiisa u tataabto asagoona jimaac sameyn laakiin ay shahwadi ka imaato asagana ma jimaac baa loo xisaabi mise maxaa loo xukunkiisu muxuu noqonay isla midaas oo mid u eegna waxay leedahay online xaaskiisa waa ka maqan marka wuxuu leeyahay haddii aan ama waxyaabahan laska arka aan ka arko islaantiyo saas shahwada iisoo dhaafto maxaa liigu xukumi midda hore oo ah 14 jir anigoo ah oo sooman baan galmooday jawaabtu waxa weeye qaangaadh miyaad ahayd mise maadan ahayd 14 jir qaangaadhaa jira yaa Soomaalidu malaha waxay moodaan 15 jir inuu qaangaadho adoo 13 sano jira haddii aad biyo keento soo qaangaadh ma tiid hadda dhalinyaraba jirta 12 qaangaadha gabdhaha iska badaayay waagii hore waa la gaajeysnaa hadda aad wax loo cunay waxyaalo la barariyay baa la cunay marka isbedel badan baa jira marka 14 jir haddaad qaangaadh ku ahayd kafaaradii baa kugu waajibaysa soonkaaguna waa jabay haddaadan qaangaadh ahayn ood markaasi aadan qaangaadhin soonkaaga aad soontayna wuxuu ahaa sunnu ahaa waajibba kuguma ahayn haddii aad khalad gashayna wax bini aadam leeyahay mooye wax kugu laazimaya ma jiro oo ilmaha uun ka celin iyo tacsiir iyo wax saasa mooye waxba kama laazimayaan kafaara iyo wax kuma laazimaan maadaama uusan wali ruuxu qaangaadhin laana qaangaadhka ayaa qalinku ku bilowdaa soo ma rufica alqalamu can 3 maadaama aadan qaangaadh haddaadan qaangaadh ahayn waay haddaad qaangaadhayna xukunkeeda hore un soo sheegnay masalada kale xigtay ruuxu hadduu xaaskiisa taataabto ama dhunkado baashaaliyo sidaas biyo kaga yimaadaan soonkii ma ka jabayaa culimada qaar baa qaba saas daraaddeed waxay leeyihiin haddii taataabashadaada iyo dhunkashadaada aad ka baqayso inay biyo keeni doonto ha u dhowaanin qaarna waxay leeyihiin maadaama taataabashadiiba la ogolaaday wixii ka dhalan lahaana waa la ogolyahay oo waa kuwa ku doodahaya maba ku jabayo soonku sida ibn xasmi iyo culimo kale almuhim wax weeyaan hadiiba aad ka baqayso inay biyo ka yimaadaan ha taataabanin hana dhunkanin hana u dhawaanin laana wax weeyaan markay ugu yartahay soonkaaga waxaa galaya hadal iyo shaki baa galaya marka ka fogow qodobka xigaay ninka haweentiisa kala xidhiidhay waxyaabahan la iska arko oo ka maqan oo la sheekaystay oo sida biyuhu kaga yimaadeen wuxuu la mid yahay kii taataabtay oo kale laakiin wuxuu kaga duwan yahay culimada qaar qaba taataabashada biyaha ku yimaada inay jabinayaan baa waxaynan qabin fiirada biyaha ku yimaada inayna jabinaynin ay qabaan yani way kala qaadayaan fiirada waxay leeyihiin ibn aadamku iyo taabashadu way kala xoog badan tahay taabashadu way ka xoog badan tahay fiirada
marka fiirada way ka fududahay bay leeyihiin almuhim hadduusan u qastin ousan muxuu ahay qasad u samaynin oo isagoo iskala sheekaysanaya uun muxuu ahay ay biyihii yimaadeen taasoo kaleeto marka waxay leeyihiin fuqahadu in badan oo ka mida soonku ma jabayo saasay qabaan waana masale khilaafiya khilaaf baa ku jira wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay dadka qaba cudurrada dhimirka oo marna isbedbedela oo daawooyinka qaata ma soonkooda ka waran haddii habeenkii miyirkiisa uu joogo ruuxu oo habeenkii uu soo niyoodo oo markuu niyoonayay uu qalb miyirkiisa joogay iyo dhimirkiisu joogay uusan maqnayn soonkii waa u guntamaya maalintii hadduu marna suuxayo oo miyirkiisu tegayo marna soo miiraabayo soonku ma jabayo hadduusan la siinin wax soonka jabiya haddaan la siinin ama uusan qaadan isticmaalin soonku kama jabayo haddiise laakiin habeenkii oo dhan miyirkiisu maqnaa soon uma xidhmin haddii maalintoo dhan miyirkiisu maqnaa uusan soo miiraabinna soon ma jiro habeenkii hadday u guntamay oo isagoo miyirkiisu jooga soonkii soo xidhay maalintiina marna uu miyir beelaya marna uu miyirkiisu soo noqonayay soonkiisu markaa waa u jirayaa haddii kaleeto oo intaas uusan ahayn soonku markaa ma jirayo laanna wax weeyaan waxaa loo baahan yahay marka niyada la guntayo inuu ruuxu joogo qalbigiisu inuu joogo laanna qalbigii niyoon lahaba hadduu maqan yahay dareenkiisa iyo garashadiisu niya asixi mayso niyadii haddaysan asixinna soon ma jiro maalintoo dhan sidoo kale hadduu miyirkiisu maqnaa dee maba soomanayn wahaakada sidaasay u kala qaadqadaan culimmadu wallahu aclam sheekh su-aashan kale waxay leedahay dad waxaan arkay uu leeyahay sigaarka iska caba oo aaminsan sigaarka inuusan cunto ahaynoo soonkana uu jebinaynin ka hor sigaarku soonkana waa jebinayaa dembi iyo macsiyo kalena waa la dheeriya oo waa xaaraamnimadiisii buu haddana soonka ku jebinaya ma jiri jirin waagii hore fuqahadii hore laakiin intuu soo baxay culimmadii joogtay baa ka hadashay marka waxay leeyihiin oy qabaan culimmadu inuu sigaarku soonka jebinayo isla markaana xaraamnimo kale u dheerto oo dembi weyn waay isticmaalkiisu sababto waxa weye shareecadu shaygu waa xalaal iyo waa xaaraan inta badan hadduusan mansuus ahayn waxaa lagu miisaamaa dhibkiisa iyo dheeftiisa haddii dhibkiisu badan yahay ruuxa diintiisa dhibayo caqligiisa dhibayo caafimaadkiisa dhibayo marka waa xaaraan dhibaatadiisu badanta nafci yarba ha ku jira hadduu rabo ilan khamradaba saasaa ilah yidhi khamrada iyo khamaarka yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wamanaaficu linnaas alla wuxuu yidhi khamrada iyo khamaarka manaafacaad baa ku jira laakiin dembigaa ka weyn maadaama dhibkoodu wen yahay manaafacaadkan yarkee ku jiraayey macno ma samaynayo dhibkaa weyn baa marka loo xarimayaa marka sigaarka sidiisana waa xaaraam soonkana waa jebinaya jazaak allahu khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay taraawiix iyo salaatu leyl labadaba ma isla tukan karaa maxay kale yihiin horta isku mid salaadii leylka ahayd ee xilliyada kale salaatu leylka ahaan jirtay unbaa ramadaan markuu soo galay taraawiix isu bedeshay taraawiixduna macnaheedu waxa weeyaan waa salaadan la isla tukanayo ee 4 ragcadood marka la tukadaba la nasanayo laakiin waa salaadii habeenkii la tukan lahaa waa ma kala jirto wax la yiraahdo ramadaanka taraawiix iyo salaatu leyl iyo witr kala baxsan ma jiro salaadii witrkiina waa ragcadaha ugu dambeeyay salaada ama saddex noqdeen ama hal laga dhigo witrkii halkaas uu galay salaadii habeenkii la tukan lahaana waa tan la tukanayo waa kaliya waxa uun isbedelay gooni baad u tukan jirtay bilaha kale laakiin ramadaan waa la isla tukaday jamaaca laga dhigo waa la wada tukaday laakiin waa salaadii habeenkii waa salaatu leyl waa saas weeyaan wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su-aashan dib nagu celisay bisha hal qof aragtidiisa ma lagu soomi karaa bisha hal ruux aragtidiisa ma lagu soomi karaa jawaabtu waa haa cala saxiix haddii ruuxaasi ruux aamina uu yahay
oo caadil oo lagu kalsoon yahay aragtidiisa waa lagu soomayaa waxaa ku tusaya xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wuxuu leeyahay tara an-nasu al-hilal waqtiga nabiga ayay dadkii bishii raadiyeen nin walba inuu arko isku dayay markaas nabiga waxaan u sheegay inaan anugu arkay hadaan Abdullah ibn Umar nabigu waa ku soomay dadkana wuxuu amray inay ku soomaan marka halka ruux haduu caadil yahay waa lagu soomi waana lagu afuri ala sahih saas daraadeed ba al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah majmuuciisa madhabka shaafiiciyada markuu keenay oo laba nin shardi ka dhigaya wuxuu yiri sida daliil ahaan xoog badani wax weeyaan hal ruux oo caadil ah aragtidiisa soonku waa ku soo gali kara waa lagu soomi karaa xadiiska Abdullah ibn Umar buu noo cuskaday wallahu a'lam sheekh jazakallahu khair su'aashan kale waxay leedahay daawada lagu cadaydo Colgate-ka ama macjuunta marmarka qaarkoodna laga yaabo qofka haduu carabka kale inay macaankeeda uu gaaro dhuntiisa ma lagu cadayn karaa maalmaha Ramadaanka daawada neefta qofka afku iskaga buufiyo dadka neefta qabana ayadana ma jibinaysa soonka midda neefta waan ka jawaabay waxay ku jirtaa hore baan u sheegay inaysan soonka waxba yeelaynin tan macjuunta ama Colgate-ka lagu cadaydo kambaniyada kala duwan sameeyaan culimada Sheikh Ibn Uthaymeen iyo culimada qaar kamid way ka dayrinayaan sababtu waxay leeyihiin marka ruuxu ku cadayanayo waxay leedahay kulayl bay leedahay macaan way leedahay dhadhan bay leedahay dhadhankaas marka inuu gudaha u galo oo uu dhaafo carabka iyo afka dhaafo bay marar badan dhici karto min baabi taxadar ahaan marka in laga lagu kaaftoomo cadayga caadiga ah hadaan laga kaaftoomi karin laga maarmaan yahayna in aad iyo aad la isaga ilaaliyo inaysan hoos ku galin oo mesela markaad cadayayso kaleeto dhuunta iyo agagaarkeeda inaad ka fogeyso saysan macaanku kuugu sibqanin ila marka soonku waa jabaya waa khatar waa naam jazakallahu khair sheekh su'aashan kale waxay leedahay ana cuntadii gacanta kula jiro hadii liigu aadamo ma inta gacanta aan ku haysto baan dhameystirtaa mise saxanka dhan حديث باكو سو أروري مسألة أصل كورته وحويان هدي بآدم كدعو عنتظر آدم كيكو اكتساسا أصل لكن حديث كاس كسو أروري عند أبي داود وغيره هي حالة خاصة المامية ولو علماء قاركود مرنا يقلين يا المسوقين يا مسوقنا حديث كوح ليه هاي إذا سمع أحدكم النداء متكين هدو آذان كما قالوا وأنا آذان كصلاة فجر والإناء في يده isagoo weelku gacantiisa ku jiro fala yadhahu hatta yaqdi haajatahu min weelka yuusan dhigin ilaa uu haajadiisa iyo dantiisa ka guto haajadiisa ka dhamaysto marka lama dhihin weelka waxa ku jiro dhan dhamaysana lagu ma dhihin inta gacantaada ku jirtana lama dhihin laakiin waxa lagu yiri haajadaada weelka ka gudo haajadaada maxaa gudi kara ma hal cantuuga ma laba cantuuga هذا قرنا لكن حديث قصاص كساروري حديث كله حجيني سنة رنت واجرته عمر بن النبي الله صحورته صلى الله عليه وسلم سيد حديث حسن كتمي مركز أوحى كويري سقو عبية ولك عنت كوهية يا آذان كدعي والرسول كلام يا إسكت دقا مسوان عبو كويري مركز آثار كله الصحابة دي كسوغان وحجيني سنة واجرته ويو آذانك مقليا إني عبين ويعونينا يضنوا ويجرتا أثار بدن الصحابة كالسوغان مركا لكن سيدة تحدركو كتير وحويان إن اسكو ضيدو إن آذانك عنتضى هذا إن سوى قارين تن وحوي حالة نادرة وكوكو عضيوة تلقاها اللي وحالة خاص مثلا وردا كلها تكتي سيوم بعضو دا هذي إن عاد ستنا ما حالة دا سوى كالمركا كوكو عضو ayaa marka xalka sida nabiga u sheegay sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam jazakallahu khair su'aalaha badan sheekh mana dhamaanay qaybaha kale su'aalaha insha Allah bariigo aan ka jawaabay sheekh ka jawaabaya marka su'aasha u dambaysa sheekh wuxuu leeyahay cuntada la bixiyo oo
fidyada ah haddaan kariyo oo dad aan ku afuriyo iyadoo karsan ma iga ansaxaysaa cuntada fidyada ah haddaad dad ku afuriso ma ka ansaxaysaa jawaabtu wax weeye dadka aad ku afurisay hadday masaakiin yihiin ilaan laba arrimood baa kala duwan sideedaba afurintu iyo ajirka lagu sheegay masaakiinta khaas kuma ah ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kaluu leeyahay ruuxa aad afurinayso inuu miskiin yahay laazim ah xataa taajiriinta afuru samayso oy agtaada ku afuraan ruux sooman soomada afurin saas waay amaa fidiyada dadka soomi waayey raashinka ay bixinayaan masaakiin baa iska leh dadka aad marka ku afurinayso hadday masaakiin yihiin sax fidyadaadii way kaa guday waa inayna dad oo haysto oo aan masaakiin ahayn ayna soo gelin sida haddaad ku bixiso afur ku bixiso ama raashin bisiloo kale aad siiso laa ba'sa insha allahu tacaala waa gudayaa ama waa gudmayaa wallahu aclam su-aal markii la xidhay su-aalihiibuu dhinac ka soo tuuray su-aal markaa iyada ku xidhay waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaab qisadii waxay ku timid boqoradii muxuu ahaayey ree yamaneed iyo nebi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu nebi sulaymaan yidhi yaa ii keenaya carshigeeda ayaa mid jinka ka mid ciidamadiisa jin baa ka mid ahay ayaa wuxuu yidhi anigaa keenaya carshigeeda yaman baa laga soo qaadaya shaamna waa la keenaya baytulmaqdis anaa keenaya intaad meeshaad fadhida aadanka shaqada intaadan ka bixin ood fadhidaan keeni buuhi mid kalea hadlayoo wuxuu yidhi waa kan hadda laga hadlaayee mid cilmulkitaab agtiisa uu yahay baa wuxuu yidhi ishaada bilig tidhi intaysan soo noqonin yaaban carshiga yamanka keeni buuhi wuu keenay markiiba waa wax hadda adduunka aan ka suuroobi karin waay soo ma adduunka hadda teknolojiyadu gaadhay horumarkuu gaadhay shay culus oo hadda yaalla yaman yaalla kawasoo yaman iska badaaba gaarisa yaalla ya ilbiriqsi halkan ma lagu soo dhigi karaa ya waxaad garanaysaan marka adduunkani meel uusan weli gaadhin buu waa gaadhay nebi sulaymaan boqortooyadiisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam saasay ahayd leanna waxa weye waxaa u shaqayn jiray makhluuqaad aadamaha ka awood badan ka xoog badan jinka iyo dabaylaha iyo waxaana u shaqayn jiray marka qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab yaa laga wadaa allahu aclam cilmiga agtiisa ahaana muxuu ahaa allahu aclam intaas okay soo ma khalaas laanna waxa weye cilmiga agtiisa muxuu ahaa markaan ka jawaabayno waa inaan aayad qur-aana kaga jawaabno ama xadiid nebi kaga jawaabno mana hayno soo ma wixii aan nebiguna ka hadlin sal alla alay wasalam allana ka hadlin dhacdo horoo dhacdayna ah annaga qaab kaloon ku ogaan karna ma jirto waajibkanagu muxuu yahay marka allahu aclam wey jawaabteeda soo ma waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina waxyaabaha qaarkood in laga gaabsadaa cilmigeeda ah amaa in la yidhaahdo ismul acdam buu yaqaanay oo carshiga ku keenay waa nooc iska tafsiira waay nas ma aha wadaadada qaarkood inayba halkaa ka bixiyaan waxa la yidhahdo cilmi laduni oo dariiqooyinka qaarkood ku kalax tageen sidii qisadii nebi muuse dhex martay khadir oo khadir wuxuu yaqaanay cilmi laduni la yidhaahdo awliyadu ay taqaano laakiin rusushu aynan aqoonin baabkaas waa baab zandaqa wey waa baab diin la-aan ah cilmi rusushii ayna aqoonin bay awliya loo furay oo awliya taqaanaa oo laduni baa la dhaha ya waa baab kufri waay waa baabka gaalnimada laga galu ka mid waa halis
waana baab dad fara badan ay ku halaagsameen cilmi la duni leeyahay jira oon kitaabta ilaahay ku imaanin oon tawreed ku imaanin oon ku imaanin injiil oon quraanka ku imaanin oo aan rusushii marayn oo shortcut tos shortcut wadaadka waliga intuu ordo tos uu carshiga ka soo daalacanahay kufri waa gaalnimo waa laana dariiqa cilmi lagu ogaado aadamuhu ku ogaan karaan cilmi ilaahay ka yimid waa dariiqa rususha waa sooma dariiqa rususha kutubta waa dariiqa wixii ka duwan oo cilmi oo la sheegto cilmi jira ma marka masaa'ishaas oo kale Allahu a'lam baa ku filan sheekh qof baa wuxuu leeyahay dad fara badan baan guriga ku afriyaa laakiin 10 dambe Ramadaan waxaan go'aansaday inaan umrada aado dadkaas aan afriyana aan dhaho iska kala taga marka inaan umrada aado ma ii fadli badan si dadkaas aan afriyay inaan 10 dambe aan ku darsado umrada aan ka joogo ka ii fadli badan labadaas waad jamciin kartaa iswaafaji laba si waad iswaafajin kartaa inaad umrada aado hawshii cidsi ku sii qabatana oo dadkii ku sii afurisana aad wakiil ka dhigato oo uga tagto waad heli kartaa ama maqaayad baad saari kartaa ama dad guri leedahay islaantaad ku ballamin kartaa islaantu inay dadka afuriso maxaa diiday tay cuntadooda u dhigto yimaadaan oo cunaan billahi tawfiiq mushkila ma leh marka cid wakiilo soo umrayso labada maslaxaba jamci si kalena waad ku jamcin kartaa inaad tagto soo umraysato waa maalin iyo laba bari oo soo noqoto oo umradii fi ramadaanna ka faa'iideysato dadkii aad afurinaysayna aad ka faa'iideysato labadaas siba waad ku jamcin kartaa بمعنى لبا شيء oo iska hor imaanayo la jamcin karin ma tanna waad ka faa'iideysan kartaa wadan kartaa umradana waad soo umraysan kartaa naam بارك الله فيك شيخ سؤال كره waxay leedahay عندوفتا ama xaakada haday badato afka dhaxdiisa oo qofka u laqo soonka wax ma u dhimaysaa wuxuu kala leeyahay xanaaqa iyo carada faraha badan qofka asagoo sooman haduu aad u caroodo oo dagaalamo soonkiisi ma nusqaan bisi waa afraaya mid hore ah candhuufta soonka ma jabinayso masalada labaad ay ruuxa haduu caroodo haddaad carooto isceliso oo isxakamayso soonkaagi waxba noqon maayo لأن عرض بني آدم كو وحو إسكعلين كرما بهابا إلهي كمكلف بني آدم كا هعرون سوى الله كلفا أسباب تكو بحين سينا العروض تكفقو لكن هدي كو قبطو وسيده هرددو كالي كور رديلو ده هردوني ما صورة قلبا صورة قلبا ووحيالا إلهي بني آدم كو أبوري إني قبصته وعرون روح ساس تردد لو قبصان ما يمحاضو عروت دنبنا كغا إيمان ما يمحاضو عروت لكن دنبقو حكا إيمان يا مركاد عروتي وحاات سميسي با دنبقو كجران هداد إسعيلي سوء النبي صلى الله عليه وسلم منك صحابي يقول يمدو إيه دردار رسولك إلهي وحكولي لا تغضب عروني بمعنى وحا لقوا وضاها عرون انت هداد عروته هفولين وحي يعني عرضة وحدو عروته هكو تلابسني تلابها كدلين عرضة اسعلي ساس دراديد با روحو هدو عروضو اسعليو وأجر وين كهليا والنبي صلى الله عليه وسلم روحا قوية معها الروحة محوها هي دتك اللقدة ليس الشديد بسرعة منك أذك روحا أذك معها روحا عدوى البلقدة معها دتك آدو اللقدة معها لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب روحا أذك الروحا قيمها له والروحا نفتي سعليو هنتمرك وعروضه سعلين كروا مركا إني عراكو قبطو صونكا وحيالي ميس لكن صونكا وحيالي هادات كنت لابسطو
khalad ku tilaabsato caytanto aflagaadooto adinka wax ka samayso markaa sax soonkaaga wax way yeelaya ajirkii soonkaaga waxbuu yeelayaa waana tii aan soo sheegnay nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam darsigeeni shalay fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faqul inni saa'imun inni saa'im hadduu ruux kula caytamo ama kula dagaalamo ama xumaan kugula kaco waad cadhoon soomaa ha caayin ha la dagaalamin ha ka ficil la qaadanin waxaad tidhahdaa waa soomanay sababtu maxay tahay soonkaaga ilaasho waay marmarka qaarkood waxaa dhici karta ruuxan in lagugu soo dirayba shaydaan kugu soo diray ilaan kii shaydaan la dhihi jiray kulligii ma wada xidhxidhna kuwii qaambayda ahaydee waaweynayd ee khayrka darnayd unbaa laga qabtay laakiin kuwa yaryaroo ruuxa tabarta yar ka adag baa jooga ruuxa tabarta yar kuwa lagdi kara waa joogaan ku yaryaraabaa yaacay marka waxaa dhici karta ruuxan kugu soo fakaday ee ku caayee kula dagaalamaya shaydaan inuu dabada ka riixayo adiga la doonayo in soonkaaga lagu ciyaaro marka inaad fahmi weydo soo khalad maaha ruuxan waxaa soo isticmaalaya shaydaan baa soo isticmaalay bini aadamkuna mar buu shaydaan soo isticmaala waa kii nabigeena shaydaanku isticmaalaa waa kii nabigeena sal alayhi wasallam isagoo xeedho cunto u fadhiistay ilmo yaroo ordahaya waa kii gacanta daf la yidhi ee nebigu qabtay sal alayhi wasallam ee yidhi shaydaan baa soo isticmaalay intaan bismillaahi la dhihin ka gaadhsii waay bismillaahi intaan la dhihin ila cuntada bismillah haddii la dhaho wuu qadayaa shaydaan si uu marka cuntada wax uga cuno cuntada waa in la bilaabo iyadoon bismillaahi la dhihin yuu soo eriyaday marka ilmo yar buu soo eriyaday si uu cuntada gacanta u geliyay isagoon bismillaahi dhihin soomaalit adiga marka inuu kugu soo eriyado balaayo aadan garanayninba si soonkaaga ugu ciyaaro soo suurtagal maaha waa inaad marka fahansan tahay waay waa inaad fahansantaho soonkaaga ku ciyaarine dhinac ka mar bismillaahi dheh innii saa'imun ka gudub sidaas wey wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay qof maalintii oo dhan jiifa oo hurda qof sooman oo maalintii oo dhanna aanan kicin sidii qofkii suuxoo kale xukun ma noqonay maba dhici kartaba ruux maanta saaka suu u seexday ilaa qoraxdu intay dhacaysa hal marna aan soo miyirsanin waa aad bay baciid u tahay waa masalada labaad ee sooxdinta iyo hurdada isku mid maaha hurdada ruuxa dareenkiisii waxbaa jooga laakiin sooxdintu way ka duwantah saas daraaddeed hurdadaa faraha badan ajirka unbay yaraynoo ruuxa cibaadaadkii uu samayn lahayo taacaadkii unbay seejin mooye laakiin soonka jabin mayso soonku waa saxayaa wallahu aclam baarak allahu fiik sheekh qof baa wuxuu leeyahay haddii qofka uu iska matajiyo haddii soonkiisa uu ku jabaayo aniga haddaan gaari raaco waan matagaa buu leeyahay qofkan marka haddii aan gaari raaco oo aan matago sababtii aniga anaa la imaaday markaas ma qasadkaas ma lii xukumi waa wax sabab qaahira waa wax kaa tan badan wax muxuu ahay adiga awooddaada ku jira maaha gaariga inaad raacdo dan baa kuu geysay laakiin adugu gaariga umaada raacin inaad iska matajiso soo maa haddaad gaariga u raacday inaad iska matajiso soonkaagu waa jabaya laakiin haddaad gaariga dantaada u raacday maslaxadaada dana kalead leedahay waad iiqsatay kadibna waad ku mantagtay waa sabab qaahira waay waxaad u qasaday ma aha ujeeddadaadana ma aha laakiin waa xaalad ku qabsatay adiga sababtaadana kumayna imaan mubaashir ma aha gaadhigaa wuxuu yahay iyo socodkiisaa sabab mubaashira ah laakiin adiga fuulitaankaad gaadhiga fuushay sabab mubaashir oo toosa ma aha asabayo wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay haddii aan dabaasho ama aan biyo barkad dhex galo soonkayga wax ma gaarin bari waan ka jawaabaynaa masaladaas ka gudub waxay ku jirtaa duruusteenna bari insha allah taala nacam baarak allah fiik sheekh su-aashan kale waxay leedahay qof dumar ah oo ilaa 3 soon isku gagaaray si u qalayn karaa
dumarka saan horeba u soo sheegnay caadada iyo dhiigga dhalmadana soonku waa ka tagsiin karaa uurka iyo nuujintuna waa ka tagsiin kartaa kullu daalika waa acdaarta kale raggay la qabaan sida safarka iyo wixii la mida haddii ay marka soon ka tegay qallaa laga rabaa haddii 2 sano ka tagtay qallihii baa lagu leeyahay hadday 3 sano ka tagtay waa inay soo qallayso qalloon baa laga rabaa fuqahada waa jiraan sida shaaficiyada iyo xanaabilada dhahaya soon hadduu soo galo adoo mid lagugu leeyahay kaa soo galay eed u dibdhigtay ilaa aad soonkii kale soo galay qallana waa lagugu leeyahay fidyana waad bixinaysaa oo raashin baad raacinaysaa waa jirtaa inay leeyihiin aahaar saxaabada qaar ka mid ay qaadariishanayaan iyo salafkii laakiin waxa weeye xadiis marfuuca iyo nas ee qur-aan iyo sunna ma laha in raashin la raacinayo qallihii unbaa laga rabaa ha qallayso oo masalada labaadee haddii ay gaadho xad ayna qallayn karin khaasatan dumarka sanadna nuujinaya sanadna uur kale oo laga yaabo inay 10 sano 9 sano isku gaadho xilli ay jilicday oo ayna soomi karin hadday markaa adkaato soomi kari weydo markaas waxaan leenahay waxaa markaasi loo fiirin karaa saxaabada qaar ka mid ah madhabkooda sida Cabdullah ibn Abbas iyo Cabdullah ibn Umar iyo raashin bay markaa bixinaysaa waxaana maray madhabka sidoo kale imaamkii muxadidka ee faqiih ahaa ee muxuu ahaayay Isxaaq ibn Rahwiya al-Hanzali alayhi rahmatullah saaxiib Imam Ahmad ayaa isaguna maray oo yidhi raashin bay bixinaysaa marka madhabkaas markaas madhab fuqahadu ay lahaayeen khilaafka culimada fiqhiga masaa'isha ay isku khilaafaan ayaa fawaa'idiisa waxa kamida marmarka qaar kood baa waxa dhici karta madaahibta kamida inuu meel ku adkaado oo ku dhaqankiisiiba ay adkaato ama suurtagal noqon weydo markaas oo kale waxa loo baxsanayaa madaahibtii kale waxa la helayaa meesha iyada ee madhabkaasi adkeeyay oo lagu dhaqmi kari waayay inay agtooda iyagu ijtihaad ahaan fududeeyeen marka makhraj baa la heli marka saas daraadeed haddii gabadhaasi soonkii ay kari weydo ku adkaato madhabka ibn Umar iyo Cabdullah ibn Abbas iyo Isxaaq ibn Rahwiya iyo madhabkooda oo inay raashin bixisa ayaa markaasi la marin karaa wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su'aalo badan oo shalay sheekhu ku jawaabay ayaa meesha ku qoran sida su'aalaha cuntada laga bixiyo dadka aan soomi karin kulli darsiga ayaa lagu noqon karaa shalay insha Allah ta'ala sheekh waxaan la weydiinin baan weydiinaynaa sheekh qofkan wuxuu leeyahay biyaha madida hadday shahwa ku imaato soonka wax ma yeelaysaa ragga biyaha ka soo baxa xubinkooda taranka kaadida marka laga reebo waa 3 nooc madi baa la yiraahdaa noocna wadi baa la yiraahdaa noocna mani baa la yiraahdaa manidu waa tan way ka duwan tahay oo dareen bay ku soo baxdaa waa biyaha boodaya ee yani ukunta oo kale oo midab ahaan u eg ee laziqe dhagaya ee yani waxa bini aadamka laga abuuro manidaasi waa tii aan ka soo hadalno waa shahwada gudashadeeda galmo ama si kale ala tafsiil fi dalika kala qadqaadayaan fuqahadu biyaha nooca labaad ee ragga ka yimaada ama yani wax weeye dumarkana waa la qabaane waa nooca loo yaqaano madida wax weeyaan markuu ruuxu dareen qaado rag iyo dumarba markuu dareen qaado isaga oo inay wax ka soo baxeen aan dareemaynin ayuu wuxuu ku arkayaa xubinka taranka biyo cad oo dhareer ah oo jiitamaya ayuu isku arkayaa markay soo baxayaanna wax ka soo baxaya ma dareemayso sida manidu kala ma manidu markay ka soo baxayso shahwe iyo waxa dareemaysaa yani wax way raax ahaan baa dareemaysa sooma waa manida ama kuwani inay ka soo baxayaan hada ma dareemayso xubinkii taranka baa waxaad ku arkaysaa qoyaan ku arkaysaa waa markii uu xubinku uu dareen qaado oo ruux dareen qaado markaas oo kale soonku ma jabayo biyaha noocaasa ee madida ah soonka ma jabiyaan
qabaysna ma waajibiyaan keliya waa nijaas meeshii gaadhaanna waa laga dhaqi midda labaadna weysada way jebinayaan weysada basii ka adagii way jebin karaan laakiin soonna ma jebiyaan qabaysna ma waajibiyaan ta kalena waa nijaaso waa la iska dhaqi meeshay gaadhaan nooca saddexaad ee biyuhu wax weeyaan waa biyada wadida la yidhaah wadidu wax weeyaan ruuxu markuu kaajo kadib ayuu wuxuu isku arkayaa sidoo kaleeto biyo yaroo dhareer ah oo iyagana cad oo jiitamaya waa kaadida gadaashooda iyaguna soo baxaan ayagaana wadi baa la yidhaahdaa madiday la xugum yihiin yani wax weeyaan soonka ma jebiyaan weysaday jebiyaan qabays ma waajibiyaan waa nijaaso meeshay gaadhaan waa laga dhaqayaa laakiin soonka waxba yeeli maayaan intaasaa marka loo kala qaadaya wallahu aclam جزاك الله خير شيخ سؤاشن kale waxay leedahay xijaamada ama dhiigga dadka lagu shubo qofka inuu dhiig dad kale u shubo soonka ma waxay yeelaysaa masalada ku saabsan dhiig in ruux loo shubo ama uu ruuxu dhiig iska saaro ama ilig iska bixiyo soonka ma jebinaysaa mise ma jebinayso sidoo kale darsigeenna berri bay ku jirtaa berri baynu ka hadli doonnaa insha allahu tacaala tafaasiisheeda iyo xukumkeeda nacam qofkan wuxuu leeyahay gabadha haddii iyadoo daqiiqada un ay ka dhimanto afarka uu dhiig ku dhaco maalintaas may soo qallaynaysa oo dhan haddii ayna qoraxdii dhicin iyadoon qoraxdii dhicin walow sakannana ha ka laabnaadee afurkii oon la afurin haddii dhiiggu ku dhaco maalinkaasi gabadha ma xisaabsanayso wuu jabay way soo qallaynaysaa leanna soonku waa cibaado aan qaybsami karin cibaado waqti leh maalinka markii aadaanku dhaco hore waagu baryo ilaa qoraxdu intay ka dhacayso cibaado waqtigaasoo dhan haysata waay haddii waqtigaa qayb ka mida ay cibaadadu jabto iyadoo dhan baa isla jabaysa wax kala hadhaya maaha salaaddii aad tukanaysa ataxiyaadkii ugu dambeeyey imaamkii assalaamu calaykum markuu yidhi aduguna laakiin weli aad assalaamu calaykum dheh hadday neefi kaa timaado salaadaadii ma burtay mise waa ku jirta ya assalaamu calaykum bay ku burtay ogow limaada laana cibaadadu ma qaybsanto cibaadadu ma kala asaxayso mar hadday hal cibaado tahay ma kala asaxayso intii horena ha asaxdo intan ha burta la dhihi maayo saas daraaddeed maalinkoo dhan baa buraya wabitaali gabadhu waa inay soo qallayso maalinkaa isagaa oo khilaaf kuma jiro isla qoliyo fuqahadu wallahu aclam nacam جزاك الله خير شيخ سؤاشن kale waxay leedahay ciyaaraha gameka ee PlayStation-ka loo yaqaan dhalinyarada ciyaarto baa saaxiibadayba aad u ciyaara u leeyahay ramadaanka marka lacagna way dhigtaan oo qofkii laga reeyo lacagtiisii waa la qaataa midka kale ee ka reeya qaataa marka qamaar miyaa midaas hadday noqoto soonka maxay u dhimaysaa waa khamaar sideedaba ciyaar muqaalaba iyo kala adkaansho ku salaysan waxna lagu kala qaadanayo waa khamaar noocay dooni ha noqoto saddex markii laga soo reebo nabiga yidhi sal lla ly slam laa sabaqa ila fi halaath ciyaar wax lagu kala qaataayo ma jirto shareecada ilaa saddex mooye saddexaas maxay tahay waa tartanka fardaha iyo tartanka geela ilan labaduba waxay ahaan jireen gaadiidkii wakhtigaasi lagu dagaalami jiray tiknikadii jihaadka loo isticmaali jiray ahaan jireen marka ciyaar keliya ma ahee tababarashaa ku jirta waa wasiila min wasaa'il aljihaad maqsadkii jihaadka bay labadooduba wasiilo u yihiin midda saddexaadi waxa weeye waa toogta waay oo iyadana ciyaar keliya ma ahee jihaadkii bay u khidmaynaysa in la toog dhisto ama leeb ama eebo ama muxuu ahaaye xabad ama madfac iyadana toogta waxa la yidhaahdo iyadana waxbaa lagu kala qaadan karaa
saddexdaas waxaan ahayn nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam waxba laguma kala qaadan karo ayib ciyaarahani waa ka sii duwan yihiin shaxda iyo dubladda iyo turubka iyo baalahan cusub ee hadda soo baxay iyo banooniga ciyaarta ahee ama gacanta ama lugta dheh wixii baabkaa ku yimaado dhan wixii lagu kala qaato waa nooc khamaarka ka mida laanna waxay soo gelayaan aayadda rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuhu lacallakum tuflixuun waa camal shayطaan waay camal shayطaan xataa haddaan waxba lagu kala qaadanayn waa waqti lumis nabiguna muxuu yidhi sal lla alay wasalam min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid a waxaan faa'iido u lahayn inuu isaga tago wakhtiga maxaa isaga lumine wakhtigaad ciyaarta dul fadhido midda kale maxaa ka helaysaa ciyaaraha xataa qaar waxaa jira jidhku ku jimicsado la ogolyahay ya orod oo jidhku ha jimicsado banooni aydan waxba ku kala qaadanayninoo cawradiinnu ay asturan tahay ciyaara jidhku ha ku jimicsado ya wuxuu jidhku wax ka helayo inaad wakhti ku bixisaay dhib ma leh waa loo baahanya waa caafimaad laakiin ciyaartani waxna kama helayo jidhkii oo faa'iide jidh kuma jirto faa'iide caafimaad kuma jirto waana wakhti lumis waana ramadaan haddana ya waa dad khasaaray wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay qof sooman oo haddana salaadihii faradka ay ka tagayeen soonkiisa maxaa faa'iido ku jirta hadduu salaadaha ka tago oo uusan tukaninba haddana soomayo siday soomaali badan soomaalida caadaadkeeda cajaa'ibtaa bay ka mid tahay soonka iyo salaada agtooda soonkaa culus saas daraaddeed ruux maalin ramadaan cunahayoon soomanayn soomaalida agteeda waa gaal dhalay waay gaal wayaan bay ku leeyihin oo muxuu gaal ku noqday calashaari waxay ku leeyihiin muxuu ahay maalin ramadaan dadkoo sooman buu wax cunahay gaal waay oo hadduuna tukaninna waa muslim dhalay waay waxaasa soconaya salaad iyo soonka kee weyn kee muhiimsan ya salaadaa muhiimsan salaadu waa tiirkii labaad ama bacda shahaada waa tiirka koobaad soonkuna waa tiirka afraad waay saas daraaddeed baa culimmadu waxay ka doodeen ruuxa salaada ka tegey ma gaalbaa mise waa muslim daahirka xadiista iyo qur-aankuna waxay xoojinayaan ra'yiga qaba taariku salaadku inuu gaal yahay uusan muslim ahayn ra'yiga iyo madhabka haddii la qabtana ruux gaal ah oo aan muslim ahayn cibaada ka asixi mayso sakan ka asaxaynin walaa soom baan ka asaxaynin walaa xaj baan ka asaxaynin walaa cumraan ka asaxaynin waa marka la qabto ra'yiga dhahaya taariku salaad waa gaal waana ra'yi xoog badan waaye fuqahada qaarkood ay mareen sidaas daraaddeed inta aad soonka ku dadaalayso in ka badan salaada ku dadaal salaada hagaaji ayadaa asaasa waa ka nebigu yidhi sal alla alay wasalam maalinta qiyaamada waxa ugu horreeya addoonka laga xisaabiyo salaada waaye haddii salaada xisaabteedii u hagaagto cibaadaadkii kaleo dhanna waa hagaagaya haddii salaada xisaabteedii hallowdana ama kharibantana kulli wixii kaleo dhan waa raacaya soomaalit marka soonkaagu muxuu tari waaya haddaadan salaadiiba tukanayn wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh qof baa wuxuu leeyahay nin gabar kufsaday oo qaaraan loo ururinayo qaaraankaas ma ka qayb qaadan karaa ajir ma ka helaya haddii aan bixiyaysa soonkayga waxaan u dhimaysaa qaaraanka loo ururinayo ma isagii baa lagu difaacaya mise gabadhii dhibku gaadhay baa la siinaya haddii daalimka gabadha kufsaday xoolihii lagu difaaci lahaa ay yihiin waxba ha ku bixinin inta ku bixinaysana ka waani maxaa yeelay waa icaana cala alimi waay allana wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan wixii dembi iyo xadgudub ah ha ugu kaalmaynina ruuxa samaynaya
waxa dadka baabi'iyay khaas Soomaalida baabi'iyay daalim wax dilay ama dumar kufsaday ama gacan ku dhiigla ah ama wax kharibay ayaa gadaal la marsanaya markaas xoolo la ururinaya lagu difaacay aday masaladu sidaa tahay waxba lagu ma bixin karo hadaad ku bixisana la dambi baa tahay aduguna haday mas'aladu tahay gabadhii xaqeedii iyo dhibkii gaaray waxa loo ururiyo haday tahayna way mudan tahay in la caawiyo way mudan tahay in la caawiyo laana waa ruux muslim oo dhibana oo la dhibay xuquuqna way leeyihiin dumarka hadii la kufsado ama lagu xadgudbo shariicadu waxay siinaysaa xuquuq bay siinaysaa marka hadii baabku kaaye oo gabadhii hal caawiyo ay tahayna ka qayb qaado haday tahay ninkii daalimka hal difaacana ka qayb qaadan naam بارك الله فيك شيخ سؤال كلا وحي لهي قف هديو سحورت انتان لقارن وحاسكيسا جماعه كدبنا هردنتا لا تكتو وساقعه بعد الفجر وساقعه أسوأنا ولي قبيسنين صونكيسا موحوا قارن si kale hadaynu dhinaahno wax weeye ruuxii isagoo janaabo qaba ayuu waagu u bariyay ama gabadhii oo caadadii ka go'day habeenimo laakiin wali aan qabaysanin baa waagu u bariyay soonkoodii ma wadan karaan habeenkii soonkii waa soo niyoodeen laakiin qabayskii loo baahnaa inay qabaystaan baa soo dib dhacay ilaa waagu bariyay soonkooda way wadanayaan waana sax waxay leedahay ummu salama radiyallahu ta'ala anha nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaasaskiisa ayuu habeenkii la kulmi jiray waaga u bari jiray isagoo janaabo qaba wuu qabaysan jiray kadibna soonkiisu wadan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam midda soonka jabinaysa waa marka aad adoo sooman wixii aad samayso waa laakiin janaabo habeenkii dhacday habeenkii wax dhacay janaabo ka timid oo qabayskeedii soo dib dhacay markaasi soonka waxba yeelimayso salaada u qabaysan soonkaagana waad wadan insha Allah ta'ala wallahu a'lam بارك الله فيك قف الشيخ سؤال كلا وحي لهي ابهي oo soon lagu lahaa geeriyooday soonkaas ma ka qalin karaa waa mas'ala khilaafiya الإمام الشافعي عليه رحمة الله وحقباء ولا قلينا حتى صونكو كي أصل كي واجب كي إلهي كلها فرض كهبا النقطة تير كه عنود ليشان يا حديث كوين في الصحيحين من حديث عائشة النبي يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه روحي كيريودا إسقو صون لقولي هاي روح حكتدي سابا كسوميه إمام الشافعي وحو يلي حديثكو مكلا قادين صون كاسي أما هالنقضو صون نذر كيميت وأدونكو يسوي اسكول لازميي أما الصون كي أصل كاهي إلهي كو واجبي هالنقضو حديثكو مكلا قادين ساس درادي اللبضب ولا سومي كرا وأنا مذهب كظاهر كحديث كوافقسا إمام أحمد بيسوي حلي صون كنذر كأموي كي فرض كأصل كماها هذه قال المهم ولا سومي كرا دي صون لقولها والدك أو كوجيريودو waad ka soomi kartaa hadaad ilmihiisii tay qaraabadiisii waad ka soomi hadaad badantihiin oo qaybsataan waad heli kartaan oo ruuxba qayb soomo hal ruux kaliya inuu soo xataa laazim ah naam barakallahu fiik sheekh su'aasha u dambayso su'aalaha kale insha Allah ta'ala baribaan u dib dhiganayna su'aasha u dambayso sheekh qofba wuxuu leeyahay dhalinyarada qaar baa masaajidka imaada iyagoo surwaalkooda uu maartay ka dhacsan yahay marka wayna sooman yihiin marka salaadaas ma ka ansaxaysaa soonkoodii muxuu noqonayaa soon iyo maro dhacsan horta iskuma xidhno soonka iyo maradu xidhiidh ma laha حتى الروح هدو قاوية صونك يسوى صحيح لأن شروط الصونك كميد معها إني عورضوا أسطورنتها إني عورضوا أسطورنتها وحلو شرطية صلاة صومة حتى ويسد الله ما شرطية سؤال فربضان وأذن الماضي كميت شيخ أنا قاون ويسيسنكر ويسيسو هذا واحد سلقة ويسانو قرن محيط لكن ويسد ويكاسح لأن
inaad weysaysato shardi uma aha weysada inaad cawrada asturto shardi uma aha cawrada asturkeedu salaadu shardi weeye soonkiina waa ka sii xaq jiraaba marka soonku waa saxaya ama ruuxa inuu maradiisa hagaajiyo oo cawradiisa asturo oo maradu xidhanayo uu ka dhigo maro shariicada waafaqsan waa mas'alo goonideeda ah oo marada raggu ay xidhanayaan hoosna waa inaysan aanqowga ka hoos marin sarwaal hadduu yahay hadday macawis tahay hadduu khamiis yahay waa inuu aanqowga ku eg yahay iyo wixii ka koreeya wixii ka hooseeya waa naar buu nebigu sal alla alay wasalam waana nooc kibir ah waa dhanka kalena waa inay cawrada asturayso cawradu waa intee ragga marka la yidhaahdo cala araajix waa inta u dhaxaysa xudunta iyo jilbaha ama lawyaha intaasaa ragga cawradooda ah intaa wax ka mid a haddaad muujiso waad qaawan tahay haddaad salaad ku tukatana salaadaadu ma ansaxayso saraawiishan marka dabada ka sii dhacaya ee dhallinyaradu hadda ay qabaan qaar badan oo ka mida salaadoodu waa buraysaa weliba intaa keliya meehe dadkii gadaashiisa ku tukanayana waa ku imtixaanayiin yaa nin dabadu muuqato oo hortaada ku foorfoorsanahay soo kadeed maa waa kadeed sidaas daraaddeed waxaan yani waa wax dib ka yimid waa wax gaalada ugu talagashay in dadka lagu imtixaano waa wax dhallinyarada maskaxda lagaga gumaysanayo waa wax loogu talagalay maalinba in si laynoo dhigo maalin sarwaal dabada ka sii dhacaya maalin sarwaal balaf oo caga waaweyn maalin sarwaal ku dhagan jirka ku dhagan yaa mid yani googo-an ood moodayso karmo xero laga guuray laga soo qaaday oo laysku karkaray yaa waxaa maxaa keenay gaalo unbaa uu naga ganacsanays caqliga nagay ku ciyaartay oo sharaftii dhallinyarada ku ciyaartay oo gumaysatay maskaxda ka gumaysatay maxaa adiga kugu kalifay inay cawradaadu bannaanaato marka cawrada astura saraawiisha aad xidhan tihiinna saraawiil jidhka ku dheggan ha ka dhigina leanna maradu inay jidhka ku dheg tahay raggana looma ogola dumarkana looma ogola maradu waa inay jidhka ka baxsan tahay leanna jidhkaaga markay ku dheggan tahay xubnihii oo dhan bay sifaynaysaa adiga sarwaalaad qabtaa laakiin yani waxaagii o dhan bannaan ku yaalla waxaagii o dhan bannaan ku yaalla sawirkaa maradu ay kor ka sawirayso cawrada lama rabo waa inay maradu jidhka ka fog tahay shardigaasina dumarka khaas kuma rag iyo dumarkaba waa laga rabaa marka maryaha waa in la iska hagaajiyo maryuhu waa halis ibliis markuu aabbaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markii uu geedka cunsiinahayay markuu geedka cunsiinayay aabbaheen iyo hooyadeen ibliis dantuu lahaa muxuu ahaa inuu asturka ka dhigayahay suurat alacraaf buu ilahay ku sheegay inuu asturka ka dhigo qaawiyo iyay ujeeddadiisu ahayd ibni aadamka guul uu ka gaadho shaytaanku kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inuu qaawiyo oo haweentii marada ka dhigo oo raggii dumarka ka dhigo oo wada qaawiyo waa waxaan gaalada hadda uu ku haysta waay iyo qaar badan oo muslimiin oo raacay oo jidkooda maray ayagoo maryihii heli kara haddana dumarkaa usii daran bal adigu ilaahay markii gaalada hadda markaad aragto raggii dhar dheerdheer bay qabaan dumarkiina dabagelis bay wada xidheen baladuu garo war naagaha maxaad dharka gaagaaban ugu xidheen raggana dharka dheerdheer ugu samayseen su-aal isweydiin lamaa waxay ka socotaa marka ninkii odaygaha baa ku shaqaysanaya wax kale maaha aadamaha waa la isticmaalayaa miskiin waay wax ku adeeganaya mog laakiin shaydaan baa ku adeeganaya sidaas daraaddeed dadkaa shaydaanku ku adeeganaya iyo shirkadaha shayaadiinta u shaqaynaya ee dharka noocaasa dadka muxuu ahay jirkiisa ku qaawinaya cawradiisa yayna ku isticmaalin ruux muslim oo sharaaf loo karaamo le baa tahay wallahu aclam sheekh su-aashan waxay leedahay qof dumarka soo qoray marka waxay la xiriirtaa qodobka u horreeya ka hadashay caafimaad ahaan raajooyinka ama kaamerooyinka gudaha la geliyo dumarka si loo soo baaro gabadhan marka iyada waxay leedahay markii la geliyo dhiig badan baa ka dambeeya dhiig badan baa ka imaada oo waxay leedahay mararka qaarkood ilaa habeenkii buu dhiiggaas oo kale iga socdaa malaha mar hore samaysay marka waxay leedahay dhiiggaas imaanaya dartiis wax soonkayga ma waxbaa gaaraya dhib ah
jawaabtu wax weeyaan gelinta xubinka taranka bible la gelinayo soo sawiraya waan ka soo hadalay inuu soonka waxba yeelaynin oo jabinayn ama haddii camaliyadaas la samaynayo uu dhiig ku yimaado soonkii wax ma yeelayaa iyaduna waa maya sababtu wax weeye dhiig caada ma ah dhiigga soonka jabiya waa dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada ama dhiig kale oo xubinka ka soo baxay ma jabinayo soonka waxaa daliilku ugu filan dhiigga la yidhaahdo istixaadada yani wax weeye dhiig furanka isku meel kama soo baxaan dhiigga xaydkuna wuxuu ka soo baxaa qacru raxim yani wax weeyaan raximka ama minka yani waxa weeye meeshiisa ugu shaysu ka soo baxaa waa dhiigga caadada dhiigga yani dhiig furankuna meel kale ka yimaada oo nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inama dalika cirqun waa xidid furan oo wuxuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam yani haraati shaytaan buu ka yimaada marka waa nooc cudura wahay marka wixii sidaas oo kale ku yimaada dhiigaga saa ku yimaada ama meel dilaacday ama dhaawac meel gaadhay oo xubinka taranka saa uga soo baxa soonka waxba ma yeelayo dhiigii caadada ahaa iyo kii dhalmada hadduusan ahayn soonka waxba yeeli maayo wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aasha maxay leedahay waxay waa dhowr su-aal isku nooca oo bisha khuseeya ninbaa wuxuu leeyahay haddii anoo meel cidlo baadiye joogo aan bishii arko magaaladii markaan imaado dadkii aan u sheego bishii inaan arkay dadkii hadday iga yeeli waayaan oo iga rumaysan waayaan bishii inaan arkay oo maalintaas ay iska afuraan aniga maxaan sameeyaa ma dadkaan raacaa mise maadaama bisha aan arkay keligeygaa soomaa su-aasha isla bisha khuseysa ayadana waxay leedahay turkigaan joogaa buu leeyahay qofkan waxayna ku soomaan kalendarkay ku soomaan bishii aragtideeda iyo waxaas ayaga kuma soomaan marka wuxuu leeyahay hal maalin ay dadka ka hor soomeen hadda soonkan marka afurka hadhow iyo ciidda ma ayagaan la ciidaa mise muslimiinta kale adduunkan raacaa masalada hore oo ruuxa keligii bisha arkay dadkiina warka ka qaadan waayeen muxuu samaynayaa hadday dadku warkaaga aqbali waayaan fuqahada qaar ka mida waxay qabaan adiga maadaama aada hubto bishii inaad aragtay waxaad u soomaysaa gooni ahaantaada ayaad u soomi kadibna dadkaad la afuri markay afurayaan baad la afuri laakiin adiga maadaama aad bishii aragtay aragtidaada waad ku soomi dadku hadday kaa rumaysan waayaanna iyaguna tooday wadanayaan yani wax weeyaan fil asli waxa weeyaan sida asalka ah yani soonku waa maalinkay dadku soomaan afurkuna waa maalinkay dadku afuraan saasuu nabigu sal alay wasalam laakiin fuqaadu waxay leeyihiin ciddii isaga gooni u aragtoo laga rumaysan waayo isagu uu soomi soonkiisa gooni buu u soomaya su-aasha labaad oo ah dadka jooga wadamada ku sooma xisaabta falaga ee aan aragtida cuskanin maxaa lagu samaynayaa xisaabta falaga in lagu soomaayey waxay khilaafsan tahay sunnadii nebiga sal alla alay wasalam nebigu wuxuu yuhi sal alla alay wasalam suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi bisha araggeeda ku sooma aragtideedana ku afura xisaab muusan dhihin nebigu sal alla alay wasalam bal xadiid fi saxiix albukhaari wa muslim ku sugan wuxuu leeyahy naxnu ummatun ummiya laa naktub walaa naqra waxaan nahay ummad aan wax akhriyin waxna qorin asalkii saasay ahaayeen carabtu ashahru haakada wahaakada wahaakada buu nebigu sal alla alay wasalam bishu waa intaa waa 10 iyo intaa waa 10 iyo intaa meeqa waay 9 waa 29 marka asalka aragtidaa sax ah saas daraaddeed baa culimmada qaar ka mid a sheekh islaam ibnu taymiya aimadu waxay soo guurinayaan in xisaabta falaga la ictimaado bilijmaac waxay khilaafsan tahay
hadyigii nebiga sal alla alayh wasalam walow hadda cilmiga falalku horumar badan sameeyey oo dhinacyo badan horumar ka sameeyey oo meelo badan la ictimaado oo ay hadda ka mid tahay salaadaha oo kale salaadaha haddaan tukanayno oo kale inta badan magaalooyinka waaweyn ay adag tahay in qoraxdii la dabdiyo hooskii la dabdiyo waxaa lagu tukadaa saacadaha xataa xarameynku hadda saacadahaasay ku tukadaan saacadaas waana daqiiq jiddan qoraxda soo bixitaankeeda dhicitaankeeda yani waqtiyada zawaalka aad bay daqiiq u tahay marka walow cilmigii falagu uu hadda yani uu sameeyey horumar weyn laga gaadhay haddana shayga ay shareecadu ku xidhay waa inaan laga gudbin inuu tacaduro mooyaane oo suurtagal noqon maayo mooye saas daraaddeed waa in aragtida lagu soomo aragtidana lagu afuro haddii waddan falaga ku soomaya aada joogto maxaad samaynaysaa waddankaasi hadday iswaafaqaan waddan aragti ku soomaya oo caalamka ka mid a aragti ku soomay hadday iswaafaqaan isagaas waad la socon haddii waddan aragtida ku soomay uu waafaqi waayo keligii falag un ictimaaday waddamadii aragtida ku soomayeyna kulli uu ka hormarayna markaa yani falagaas uu ku soomay sax maaha laanna aragti waafaqsan ma jirto aragtidaana asal ah saas daraaddeed waxaad heli kartaa inaad aragtida raacdo waddamada aragtida ku sooma ayaad raaci ku afura ayaad raaci sidaasaa sax ah ama falaga in la ictimaada keligii waxay khilaafsan tahay hadyigii nebiga sal alla alay wasalam iyo daahirka axaadiista wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay waxaa laga soo diray Mozambique marka waxay leeyihiin meel makhaayad baan leenahay meel ay gaalada ku badan yihiin oo muslimiinta ay ku yeeriyeen bayna makhaayadda ka furan tahay marka maalmaha ramadaanka gaalada ma u shaqeyn karnaayo ma ka ganacsan karnaa makhaayadda cuntada isla su-aashaasoo kale waxay leedahay makhaayaddeeda waxay ku taallaa meel dadka musaafiriinta ay maraan marka dad musaafiriin baa makhaayadii kusoo leexda marka dadkaas ayagana ma ka shaqaysan karaa buu leeyahay midda dambe jawaabtu waa haa hadday dhul musaafiriintu marayaan ay ku taallo dadka musaafirkaa inay cunto cunaan waa loo ogol yahay inay afuraanna waa loo ogol yahay xataa muslimiinta saas daraaddeed dadkaasi inaad cunto u diyaarisood ka iibsato waa wax iska bannaan hadday iyaga u bannaan tahay inay cunaan adigii inaad ka ganacsatana way kuu bannaantahay waa dadka musaafiriinta iyo maqaayadaha jidadka ku yaalla dadku marayaan dhima laha taas amaa su-aasha hore ku saabsan maqaayadaha ka furan dhulalka gaalada ee gaaladu ay maalinta ramadaanka ka cuntaynayaan ma furnaan karaan maalintii mise ma furnaan karaan waa masalo cusub wax horey u jiray maaha waqtigii nebiga sal alla alay wasalam ee waxyigu degayay maqaayado dadka u furnaa ma jirin guryaha unbaa la aadi jiray laga cuntayn jiray hadday marti timaadana martida guryaha la geyn jiray martidan hadda laga seexanaya magaalada iska celi laleeyahay ee hoteelka degaysa ee maqaayadaha ka cuntaynaysa ma jirin marka wabitaali dadkii dimiyiinta musta'maniinta ahaa ama dadkii muslimiinta ee gaalada dhexda ka ganacsan jiray maqaayado ku yaalay oo ramadaanka ay ka ganacsan jireen oo furnaan jiray oo markaa mas'aladii lagu dhiso lama hayo masaa'isha marka mustajadaadka bay ka mid tahay oo dib ka yimid hadday timidna khilaaf baa ku jira culimmadu way ku kala aragti duwan yihiin waxayna ku salaysan tahay mas'alo asal ah oo iyadana la isku khilaafsan yahay cilmiga usuulka qaacida lagaga hadlo la yidhaahdo hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica gaalada asalka in laga rabo inay towxiidsadaan oy diinta soo galaan layskuma khilaafsanaa laakiin haddayna diintii soo gelin towxiidka marka laga soo tago masaa-ishan kale diintii axkaamtan kale gaaladii ma laga rabaa mise lagama rabo gaalkan meesha marmarahaya salaadii waajib ma ku tahay soonkii waajib ma ku yahay mise maadaama uusan weli towxiidsanin
soon iyo salaad see looga rabaa tawxiidkiiba lama imaaninay masaladaas salku haysaa marka haddaynu nidhaahno gaaladani axkaamtii hoose ee furuucda ay fuqahadu dhahaan yacni waxa way waa laga rabaa haddii la yidhaahdo macnaheedu waxay noqonaysaa gaalkani inuu soomaa laga rabay soonkiibuu ka tegey soomaa wuu afuray cuntada uu cunaya waa xaaraan adiga ka gadayana xaaraan baad ka gaday dembi baad isu kaalmaysateen labaduba dembiilayaal baad tihin soomaa haddii ra'yiga kale lagu dhiso oo la yidhaahdo war gaaladani furuucdan hoose lagulama hadlin lagamana rabe asalkii horta inay la yimaadaan waaye soo maa marka waxay noqonaysaa maadaama asalkii ayna la imaanin furuucdan hoose ayaga lagalama hadlayaba saas daraaddeed baa cuquudoodii ay bannaanaatay oo guurkooda loo dayn sidiisa oo yacni beecooda iyo shirahooda sidooda loo dayn oo aan la jabinaynin markay soo islaamaan marka sidaa marka la yidhahdana waxay noqonaysaa waa laga gadi karaa cuntadii oo yacni bisil baa la siin karaa masaladu markaas halkaasi ku haysa hal kufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica asalkaasoo isagana la isku khilaaf walow jumhuurtu ay qabaan mukhaatabuuna bifuruuci shariica haddana masalada halkaasay salka ku haysaa marka masalo dhinaca loo goyn kara ma aha waxaa keligeedba ma ahaba masaladaa hadda waxa weeye maqaayad gaalo dhex furan ma ka shaqaysan karnaa maba ahee wayba ka dhowdahayba shaqaalaa guryaha inoo jooga soo maa gaalaha oo guryaha inooga shaqeeya gaaladaasi guryaha inooga shaqeeyay iyo dumarka ka shaqeeyay iyo gaaladan inooga shaqeeyo maalan kambaniyadeenna ka shaqeeyay iyo cunto ma siin karnaa mise gaajaan u dilaa ya nafsulmas'ala waay ayadii waay haddii la yidhaahdo gaaladan taati soonkii lagama rabo lagulama hadlin oo iyaga muxuu ahay mukhaadabuun ma ahana cuntada siiya waay haddii la yidhaahdo waa laga rabaana ha siinina waay hadday doonaan gaaja u baqtiyaan meelahina ka raadsada dhah marka masaladu waa masalo noocaas lamana xasmin karayo baxthi ziyaadaa bay u baahan tahay wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh su-aashan kale waxay leedahay waa su-aal nadar ah soonka nadarka marka islaam baa waxay leedahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala nabad igu geeyo kismaayo 100 maalmood baan soo beebay marka waxay leedahay marka kismaayo tagay aan ku nabad tagay baa lii dhacay marka 100 maalmood waxay leedahay marka kadib 94 ilaa iyo hadda isniin iyo khamiisna waan soomaa marka soonkii 100 maalmood ah ma iga guddaa taas dhicitaankii lii dhacay asaga muxuu noqonayaa dhowr weji bay leedahay masaladaasi wejiga koowaad horta nadarka gelidiisa masalada nadar baa la yidhaahdaa nadarka gelidiisa si ahaantiisaba waa laga fiican yahay nadarka in la galaay ma fiicna nabiguna sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi hagelina lianna wax uu ka bedelayo ilaahay maqaadiirtiisa ma jiro nadarku wax laguu qoray wax ka bedeli maayo waxba kuu soo jiidi maayo yaa khayr kaa maqnaana kuu keeni maayo sharna ma dafcinayo nebigu wuxuu yidhi sal ly slm keliya inamaa yustakhraju bihi min albakhiil ruux bakhayl ahaayo ilaahay daacadiisa ku bakhaylay unbaa nadarku wax ka soo saaraa soo ma soonkii aada soomi weydo oo lagaa soo saari waayo unbuu nadar kaa soo saaray sadaqadii aada bixin weydo ilaahay dartii u bixin weyda markii hore unbuu nadarku kaa soo saaray yaa laakiin waxa weeyaan wuxuu isbeddel uu keenay ma jiro mar hadday sidaas tahay culays iyo inaad wax isku laasimiso unbuu ku saari mooye waxba kuu soo kordhin maayo khaasatan nadarka nadru taaca midka la yidhahdo mee nadrulijaajka midka shartiga ah ilaah haddaad waxaa isiisa waxaasaan siin ilaah haddaad waxaa iga badbaadisa waxaasaan samayn leesh maxaa adiga rabbigaa cibaadadiisa wax ugu xidhxidhi intaad ku xidhaysa in ka badan buu ku siiyee intana toos baabaad u weydiisan kartaaye maxaad isugu xidhxidhi soo qalad maaha saas daraaddeed nadarka si ahaantiisaba noocaas ma fiicna haddaad gasho soo maa adaa qoorta la galay soo maa adaa qoorta la galay man nadara an yutic illaaha falyutichu way marka
hadduu nadarkaasi taaco yahay waad isku laazimaysa adaa isku laazimiyey laazim waaye inaad marka fuliso yuufuuna binnadri waata alla ku ammaanay nadarkii bay oofiyaan waa laazim marka inaad nadarkii oofisa waa ayib nadarka ay marka gabadhu gashay ilaahu kismaaye haddaan nabad tago 100 baan soomi soo maaha way nabad tagta hadday ku dari lahayd oo aan ku nabad galo haddaan kismaaye nabad tago oo anigii xoolahaygu aan ku nabad galaan aan ku nabad gallo inta hadday ku dari lahayd waxba kuma laazimeen laakiin waxay tidhi haddaan kismaaye nabad tago way nabad tagtay soo maaha nadarkii waa laazimay xoolaha dambe la dhacay nadarka kuma jirin nadarka kumayna jir shardigay xoray xidhatay kuma jirin soo maaha mar haddayna ku jirin xoolaha la dhacay nadarku shaqays kuma laha nadarku waa kugu laazimay waa inaad guddo waay adaa qoorta iskashaday qaybta xigdaasa waxay weeye axad iyo waxaan soomayay bay tidhi khamiis iyo isniin yaa waqti dheer soomayga gudaysaa waxay kaa gudi kartaa isniinta iyo khamiistaad soomaysay haddaad ku soomaysay niyad ah inaad nadarkii guddo lianna soonka sunnada ah iyo midka waajibkaa niyadaa kala saarta soonka hadda aynu maanta soomanahay iyo soonka sunnada ah waxaa kala soocayaay waa niyada labadooda waa isku qaab axkaam waa isku qaab laakiin waxa kala saaraya markaad niyoonayso midna farad yahay midna uu yahay soon sunnaa yahay saas waay markaad niyoonaysay khamiista iyo aad soomaysay isniinta haddaad u soontay soonkii sunnaha ahaa ee isniin iyo khamiis la soomi jiray nebigu jideeyey ee sunnaha haddaad niyootayna nadarkii weli waa lagugu leeyay haddaad u niyootay nadarkii u niyootayna waa kaa gudaysaa inta kuu laaban baad fiirinayay intaad gudday boqolkii ma dhammaystirta mise maadan dhammaystirin wallahu aclam بارك الله فيك شيخ سؤال كذا خلينا هاي قف بقى عليه هاي وحن كسر يا ودن كيوروب ودن ماذا يوروب متكمدة عليه مركا سفر كي هو مركا أي ساعات هاي لحظة قلب نمو أفرقنا وحكو أدين هاي تقريبا سجالك مركا مال انتاس عن سفر دوانا إذا أفرق وكلمة 6 ساعات maalintaas ma iska sii afuri karaa rusqadii ma hore ma u sii qaadan karaa isla su'aal iyadana safarka khusaysa wuxuu leeyahay qofka musaafirka kee u fadli badan inuu soomo hadduu awoodi karo iyo inuu rusqada qaato midda hore waxa weeyaan waxaan u fahmay marka uu baxayo safarta uu galayo waa maalinimo maalinimadii xilliga ay qoraxdu u dhacayso dalku ka tagayo iyo meeshuu u socdo xilligii qoraxdu u dhacaysaa kala dambaysa marka afurku xilli dambuu ku aadan yahay maalinimaana la joogaa meeshiisa ma afuri karaa saas midyaa taqriiban hadday sidaas tahay maya waay ilaan waxaa la afuri karaa qoraxdu markay dhacdo waxaad samaynaysaa waxaad ku afuri lahayd qaado dad diyaarad raacaysa iyo dad gaari raacaysaba kadibna bax meesha ay qoraxdu kuugu dhacdo ee aad marayso ku afur inta ka horeysa ma afuri kartid xataa hadday maalintu kula dheeraato qoraxdii oo soo jeeda ma afuri kartid laakiin waxaad samayn kartaa maadaama aad safar tahay waad iska afuri kartaa maadaama aad safar tahay safar ahaantaaba lagu ogol yahay inaad u afurto oo aad soonkaaga dib ka qalayso haddii marka soonku kugu dheeraanayo labada meelood u kala socoto uu marmarka qaarkood baa laga yaabaa inuu 24 saac ba aad qorax ku jirto hadday sidaas oo kale tahay markaasi wax weeyaan iskaba afurba habeenkiiba iska afur maadaama aad safrayso safar ku jirtaan dheelaha inta safarta ku jirto ruqsada qaado taasaa kuu furan ama haddaad soonto oo doonayso soonkaagaasi inuu sida kuugu dhamaado qoraxdu markay kuugu dhacdo baad afuri kartaa meeshay qoraxdu kuugu dhacdo baad ku afuri iyo xilligay kuugu dhacdo naam salada lahayd marka uu ruuxu safarka yahay quraanku wuxuu inoo sheegay inuu afuri karo
faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waa afuri karaa dib uu ka qallayn kee fadli badan culimmadu waxay leeyihiin saddex bay u kala qaadayaan waxay u kala qaadayaan dhowr xaaladood haddii soonku ku dhibayo oo safarta uu kugu dhibayo inaad afurto ayaa fiican culimmada qaarna waxay waaba laazim inaad afurto waa laazim qaarna waxay leeyihiin karaaha ku jirta inaad soomanaato xilligaa isaga sababtu maxay tahay ruksada shareecadu mar hadday wax kuu fududayso aadna u baahan tahay qaado inaad afurtaa fiican waxay ku tusaya nabiga sal alla alay wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu arkay dad sooman oo aada u dhibaataysanoo soonkii dhibay aada ugu rafaaday nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam kuwaa soomanee soonku dhibay haddana ku rafaadsan waa caasiyiin buu nebigu sal alla alay wasalam waa cusaad marka maalin maalmaha ka midana saxaabadiisii soo sohom buu arkay oo saxaabadiisii soomeen oo isaga ku daydeen kadibna maalinka dhexdiisii buu soonka jabiyey علشان waxa weeye si dadka u baro in ruqsada qaataan salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka haddii soonku ku dhabayo waxaa fiican inaad iska afurto hadduusan soonku ku dhibayn oo aad caadi ku yahay oona dhex dhiba kaa soo gaadhaynin markaasi inaad soontaa fadli badan si aad waajibka isaga hormariso sidaana saxaabada nebiga sal alla alayhi wasalam nebiguna waa ku soomay isagoo safara saxaabadiisuna qaar ka mid ah waa soomi jireen iyagoo nabiga la socda sallallahu alayhi wasallam iyagoo safar ah marka dadkay ku kala xidhan tahay ruuxii soonku dhibayana ha iska afuro ruuxii uusan soonku dhibayninna ha soomo sidaasaa u fadli badan wallahu aclam sheekh barakallahu fiik nin malisha jooga ayaa wuxuu leeyahay salaadaha taraawiixda aad bay u boobsiyaan buu yidhi rukuucda iyo sujuudda midna kuma dahaan mideeda kale wuxuu leeyahay afar rakac markay tukadaanba waxay akhriyaan salli fara badan iyo duco dheer oo khulafada raashidiinta lagu ammaano marka afar rakacada hore abubakar baa lagu ammaanaa afarta ku xigta cumar ilaa laga gaaro cali bin abi talib radiyallahu anhu marka nimankaas ma iskala tukan karnaa mise waan ka goobsanaa ma mid mise mid salaada taraawiixda dhexdooda afarta ragcadood markii la fadhiistaba in wax la qaado sal iyo raatoona ma laha wax ka sugan ma aha nabigeena sallallahu alayhi wasallam axaadiistiisa laguma hayo wakadalika saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salafkii taraawiixda tukan jiray lama hayo inay salaada dhexdeeda wax qaadi jireen taraawiixda dhexdeeda in wax la qaado walaa salli lagu dhawaaqo walaa tawxiidka la qaado walaa saxaabo la amaano midna ma soo aroorin saas daraadeed waa bidcatun muxdatha waa bidca dib laga keenay wa kullu bidcatin dalaalah bidca kastoo dib ka timidna waa baadi allahumma marka salaada taraawiixdu dhammaato ayaa waxaa sugan aahaarta qaarkood سبوح قدوس رب الملائكة والروح وصلاة مركز الدمية أما صلاة لها دحدود وحيالا لقاد قاضي مجر كاقدرنا هدنا أفرته هنا أبو بكر كو خصيص وكو الدنبارة عمر كدك كو حيقنا عثمان كدك كو حيقنا علي كدك يا ساو إذن كو قيبي يا سا إذن كل شيء ده وسؤال جودين له يا سا وحوش شيء كرا أو كلا خصيصي كرا والله تبارك وتعالى يا رسول كي صلى الله عليه وسلم إلى الآدم وحمد شيء ده يسنكره وحكما خصيصي كرا تخصيص كإله بس كله صدر يبدأ النبي يقول صلى الله عليه وسلم هبين كتشمع هذا وح وجونية هكو خصيصنا قيام جونية ما أنت تشمع هذا الصون جونية هكو خصيصنا ما أنت هذا ما أنت فضلك بنديت شبيك شو هذا هبينك فضلك بنديت أنا مع الدينية هاي تخصيص كعبادة وقت اللي خصيصه أما مال اللي خصيصه شارع عايز كله وداد ما سمين كره الشيخ نملها أودا يدا وحي وداد يا شيخ وسمين كره ما تخصيص ك ومسألة شرعية هو شارع عايز كله
tanka marka la yiraahdo waa wax saxsan ma masalada xigtaay waxay tahay taraawiixda in la dadajiyo rukuucda iyo sujuudda iyo istaaga iyo la dadajiyo iyadana waa shay laga fiican yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam Aisha markay tilmaamaysa salaadiis kaana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan baytri nabigu sallallahu alayhi wasallam afar buu tukan jiray ragcadood haba isweydiinin sida ay u quruxsan yihiin iyo sida ay u dheer yihiin haba weydiinin afar kale tukan jiray sidaas oo kala ah markaas uu hadana saddex tukan jiray sallallahu alayhi wasallam marka nabiga salaadiisu way dheereed saxaabadu markay sifaynayaan habeenadii nabiga salaada la tukadeen taraawiixda waxay leeyihiin habeenada qaar kood intuu nala istaagay ba salaadii taraawiixda wuxuu dhameeyay ilaa aan isniriba war amu idinka tagtaa ama suxuurtu idinka tagtaa salaada subax yaani aadaanka subax agtiisu ku gaarsi sidii loo taagnaa wax loo akhrinaa marka qiyaamka istaaga in la dheegareeyo qiyaas quraan fiican la akhriyo saas daraadeed baa fuqahada badankood waxay istixsaansadeen oo sunnaysteen way u arkeen imaam Nawawi iyo ayma badan baa soo guurinaya ibn Qudama iyo ibn Abd al-Bar iyo waxay leeyihiin sida fiicani waa in quraanka lagu dhameeyo muxuu ahaayay salaada taraawiixda ramadaan in quraanka lagu khatimo hal mar ugu yaraan marka sida fiicani wax weeyaan oo Aisha ay nabiga ka warinay sallallahu alayhi wasallam in ragcadaha 12 laga dhigo ama hadii kale 13 laga dhigo laakiin quraanka la dheereeyo rukuucda iyo sujuudana la qiyaaso hadii dad kugu daba tukanayaan aad loo dheereen ma laakiin waa la qiyaasaya inta ruuxu adkaar yarna ka akhrisanayo ducaa iyo laba ducana kaga darsanayo marka sidaas salaada fiicanta ayaa waa saas daraadeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afdalus salati tulul qunut salaad waxa ugu fadli badan salaada istaageedu dheeraado yaa ugu fadli badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka saas sax ragcadaha in la yaani wax weey la yareeyo qiraa'adana la dheereeyo ama in qiraa'adiina la koobo rukuucdi iyo sujuudiina la dadajiyo ilaa heer gaari kartaba in tumaaniinada iyo xasiloonida laga tago rukuucda xasilki laga tago sujuudda xasilki laga tago la boodboodo qolo yaani wax weey Pakistaniyiin aan ku arkay hatta wax kale iska dhaafay 23 ragcadood 3 ragcadood waxa lagu tukanayay iyada dhanba 15 daqiiqo adii ma gaari kartid koon 7 daqiiqo miya 7 daqiiqo adigu say loogu tukaday bal adigu garo ma gaari kartid qubax nin dheereeyo xariifa mooyee ma ka dabatay kartid marka waxa salaad ma aha ciyaar waay salaada marba hadii dumaaniinadii la lumiyo salaad ma aha saas daraadeed nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii musii salaati Bukhari iyo Muslim iyo sunanka ku yimid ninkii salaadaadu ma saxmin leeydi waxa ka khaldana xasilida ka khaldanay laana waa tiirarka kamida salaada bil ittifaaq in rukuucda iyo sujuudda lagu xasilo hadii lagu xasili way salaad waa buraysa waa lumaysa macna marka wax weeyaan haday qaabka yihiin oo qaabka u tukanayaan sida idin fiican wax weeyaan gurihiina ku tukada salaad dheerna tukada oo quraan aad ku akhridaan laana wax weeyaan in la tukado jamaacada la tukado salaada taraawiixda waa sunno ee waajib ma ah way un fadli badan tahay laakiin markii sidan oo kale ay noqoto waxa fadli badan inaad guriyaha ku tukataan guriyahana quraanka aad ku akhrisataan hadaad meel gooniye heli kartaan oo xogaa isugu iimaan kartaan oo idinku aad salaadiina tukan kartaan oo idin furan tahay laana salaadii waajibkayd ma salaada waajibka ayaa tahay in masaajida lagu tukado ama salaadaha sunanka guriyaha lagu tukan karaa gurigaaga masaajidka ku dhagan salaada taraawiixda waad ku tukan kartaa hadii aad quraanka xifdisan tahayna akhriso hadii aadan xifdisan xataa misxafka ka akhrisan kartaa ayaduna mas'ala kale waa hadaad quraanka xifdisnayd misxafka waad kaga tukan kartaa ama mobilkaaga quraanka ku jira waad kaga tukan kartaa waa kada laana Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ayay ka sugan tahay
inay misxafka ku tukan jirtay quraanka akhri jirtay iyadoo salaada ku jirto marka dhib ma laha saas markay yeelaysa ama masalada ku saabsan oo masalada baraarujinta tirada salaada taraawiixda sida saxiixa ah xad go'an ma laha masaladaasina waa masalo ijmaaca waa cinda salaf waa ijmaac inaysan xad go'an lahayn sida fiicani 11 ragcadood 13 in lagu ekaado sidii nabigu ahaa sallallahu alayhi wasallam Aisha la weydiiyay salaadiisa ka waran Ramadaan waxay tiri Ramadaan iyo qeyrkii toona 11 ragcadood muusan ka badin jirin Bukhari iyo Muslim buu ku yeelay xadiis laakiin haddana mac dalika xad go'an oo la dhaafi karin maaha salaatu layli mathna wa laba loo wadi fa idha khashiya ahadukum al-fajr marka duwaabarka ka cabsato witirka samee saas daradeed ba aymadii salafka ay isku khilaafeen imaam shaafici oo kale wuxuu yiri 20 ragcadood iyo 3 witir ah qolo waxay dhaheen 30 iyo dhowr qaar waxay dhaheen 40 iyo ziyaado qaar 60 iyo ziyaado ay dardareen ليش لأن waxay ku tusaysaa mas'aladu عند السلف ma ahayn mas'ala tira go'an leh fahamkoodii baana sida aha mar haday sidaas tahay tiradu dhima laha masaajidkii 30 iyo laga tukado 20 iyo 3 dhima leh 11 kii laga tukado ma leh dhima laha ka badan kii laga tukado dhima laha laakiin salaada waa inaan arkaanteedii lagu ciyaarin taas muhiim arkaanteedan lagu ciyaarin maxaa fiican hadii la yiraahdo waxa fiican 11 ragcadood oo qiraa'ada la dheereeyo saasa fiican way fiican tahay hadii la yidina tii kale ma diidayso ta kale ruuxii qaata mushkila ma leh wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su'aasha ugu dambayso gabar baa waxay leedahay waxaan galay oo iska dhiibay mid ka mid ah wadamada Yurub waxay leedahay marka been baan sheegay oo been baan isku dhiibay oo da'deedii da ka yar baan sheegtay ilaa 4 sano ayaan da'deedii ka dhimay saasna waxaan ku qaataa bateri xoolo maartay loogu talagalay dadka da'da yar oo aan qeyn gaarin marka waxay tiri xilligaas aan arinta sameynay qof hanuunsan oo tukada oo quman ma ahayn hadda waan hanuuno salaada iyo diintii baan ku soo xirmay marka beenti ayaa idaba taagan bateri ko iyo xoolihii xafiiskan taga waxay tiri markii magacayga da'deedii li weydiyo da'dii beentan sheega waxay leedahay marka marmar waxaan go'aansadaa inaan gaalada u sheego dhaw waxaan been waay aan sheegay laakiin waxay tiri waxa ay hortaagan oo ka cabsanayaa walaalahay oo yar yar baa meeshii jooga ayagana waxaan ka cabsanayaa tiri marka sharciga iyo wixii inuu dib soo gaaro haddii aan beenti aan sheego aan dhaho wixii aan sheegay been bay ahayd marka seen isku waafajiyaa bismillaahi raxmaani raxiim been waa xaaraan inay xaaraan tahay inaan wada ogsoonnahay soo ma wixii xaaraan lagu qaatana ma xalaalba hal xaaraama niliga xalaal ma dhasha ma dhasho wixii been lagu qaatay iyo khiyaano waa xaaraan qiila looma heli karo saas daraadeed gabadhu hadday da'dii beenta ahayd dhaaftay waxay ku cuni lahayd ku cuntay laakiin ay dhaaftay oo hadda ay shaqaysato ay shaqadeeda iyo dhiidkeeda wax ku hesho ka meesheeda waay laakiin ilaa iyo hadda hadday da'dii yarayd wax lagu siinayo beenna ay tahay xoolaha ay ku qaadanayso waa xaraan seen yeelaayo gaaladu miyaan u sheegaa saad u farsamayn lahayd adaa yaqaan nin tuur la taba u isaxda isaga yaqaan laakiin waxaan ku ta'kiidin karaa wixii sidaas oo kale ku yimaado waa xaraam ama gaal been u sheego khayaan ama muslim been u sheego khayaan been iyo khayaano gaal la kuma banaana in lagu sameeyo muslim in lagu sameeyana iska badaa saas daraadeed waxyaalaha gaalada lagu khayaamayo iyo beenaha loo sheegayo ee xoolaha laga qaadanayo mubaashirka ah ma ay banaana haddii ay beentu iyadu sabab u tahay waxaad qaadanayso oo haddii runta aad sheegto xoolahan ayna imaanaynin waxaa ka mid ah xoolo badan oo caruuraha lagu qaato oo been la sheego waxaa ka mid ah xoolo badan oo dadka da'dii qaataan oo been la sheego waxaa beenta lagu qaadinaya laalaabkii laqdabadoo dhan waa xaaraan waay laanna diinteennu ma qabto in
wasiilo xaraam ah in xoolo loo maro adduunyo loo maro ma ay qabto allahumma xaaladda daruurada adag oo naf la badbaadinayo oo bakhtigu bannaan yahay xaaladda mooyaane sida kale maya marka xoolahaas gabadhaasi say uga bixi lahayd oo beenta uga bixi lahayd waa inay falalkeeda gasho xaaraantana ay isaga joojin lahayd badiil ay u raadsan lahayd nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu ruuxii shay ilaahay dartii uga taga wax ka fiican buu ilaahay ugu bedelaa marka ilaahay intaad ku kalsoonaato iska daa beenta waxay keenaysana iska xidh wallahu aclam sali allahuma wasalam wabaarak calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam